waxaa waqtigiisa siiyey muwaadin reer Puntland oo la dhaho Naxar Koonte. daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij ku saabsan aasaaskii iyo taariikhda Puntland. 30 sano oo ay Soomaaliya dawladnimo ay haysatay waxa ummadda Soomaaliyeed ay ka dhaxleen burbur iyo dagaalo sokeeye. magaaladii ummadda Soomaaliyeed ay isugu tageen kuna tacbayeen wax ka badan 30 sano waa Muqdisho waxay noqotay meel aan xasiloonayn. xilligaas gobolada ku bohoobay magaca Puntland waa gobolada Bari, Nugaal, Mudug, Sool, Sanaag iyo degmada Buuhoodle waxa ku soo qaxay dad aad u badan qaybaha bulshadana ka kooban isla markaana naftooda la soo cararay hanti u badbaaday iska badaayay. inta aynan u guda galin taariikhda dhismaha dawladnimo ee Puntland waxa mudan inaan isweydiino asbaabaha markii ugu horeysay loogu hamiyay in la dhiso Puntland. asaaskii Puntland waqti fiican baa hadda ka soo wareegay. asaaska Puntland wuxuu ahaa marxalad taariikhi ah oo la soo maray buu ahaa oo runtii raggii ama dadkii waagaas barnaamij fikirkaas keenay ama ku fikiray ay asiibeen wax badan uga dhigan dadkan iyo deegaankanba uga dhigan oo ku soo beegmay 8 sano kadib burburkii Soomaalida iyo dhacdii dawladda dhexe markii wax la sugayay. sideedaba wuxuu ku saleysnaana fikirkaani laba qodob buu ku saleysnaa oo ah in 8 sano ka bacdi wali la sii qabo rajadii raadinta Soomaaliya oo la sugo wax soo hagaaga iyo inta ka horeysa in maamul la samaysto oo lagu sii kala badbaado. labada qodob buu ku saleysnaa. shirar badan oo la doonayay in lagu xasiliyo dalka Soomaaliya nabadna loogu soo celiyo waa fashilmeen. soddonkii shir oo ina ka tegey siirma ay dhaliine sancayo midkii qaahiriyo sabada Nairobi iyo soodaraan eegayiyo waxay sameeyaane isagoo si xun u taagan oo meel siba jooga ninkii ay sisaaradu heshay baa lagu sifeeyaaye saacadii ijaaba dhinayd iyo saxiixiye sababtana ilaah baa lahayo sidaa yidheen saxiix weeye inaan Puntland suurtagelinaaye ha yeeshee silsaan bay rabtaa saa markay tahaye weelkaba salka laga unkaseesna daraaye sadar waliba wuxuu raacayaa soodintuu xigaye sare kama bilaabmiyo dhexdo malaha sii raace nin saluugay sabaduu lahaa ama ka seeraaray oo sudhaya doondoonayaa samirkii waa yaabe saa dambay siyaadadu imaan amase saakuune saldhigiinna aamina libtuna yaanay idin saaginaan. intii ka dambeysay fashilkii ku yimid shirkii kooxaha Soomaalida ku yeesheen magaalada Qaahira dhammaadkii sanadii 1997 iyo kuwii kale ee ka horeeyay waxa gobolada Puntland ka dhashay dareen ku saabsan in baahi loo qabo dhismaha maamul goboleed ay ku midaysan yihiin gobolada markii dambe la baxay Puntland. fikirkaas kadib waxaa dhacay shirar wada tashi oo arrintaasi ku aadan oo shirkii koowaad wada tashigu uu Garowe ka dhacay bilowgii bishii Febraayo sanadii 1998. shirkaas waxaa xigay shir kale oo wada tashi oo ka furmay xarunta ciidamada ee 54 waxaana uu socday intii u dhaxaysay 10 ilaa 12 bishii saddexaad ee sanadii 1998 kaasoo ay ka soo qayb galeen dad gaaraya 150 qof oo ka kala yimid gobolada Sool, Sanaag, Galguduud iyo 3 gobol ee waqooyi bari waxaana ka soo qayb galay